sida anu la wadaagaya Dr. Sheekh Bashiir gudoomiyaha Cumar Soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa kuna hadlayaa afka culimada guud ee Soomaaliyeed taasoo jamaaca markas irshaad oo isu xil qaabay wal hadadku aad u biciidsanayeen laakiin culimadu ay ogeed inay aad u fudud yihiin oo ah in aragti midaysan laga soo saaro khaldan ee dadkayna jahwariyay kuna dhisan diinta iyo qaabkii ummadda loo samato bixin karo qaabkii midnimadeeda loo ilaalin karo qaab mabaad khawaas mushtaraga ay leeyihiin oo culimada Soomaaliyeed inay loo toobiyi karo oo anku aan aaminsanay inay aad u fududahay maadaama ay culimadu indahii dalka iyo dadkaba ay yihiin dadkii mas'uulka ahaa diinta mas'uulka ahaa kuna midaysnaa runtii weligood usul shariica aan isku khilaafin ku midaysnaa badbaadinta dalka iyo difaaciisa ka hortagidda afkaaraha khaldan iyo hanuuninta shacabka ilaahay xanuuniye laakiin wadada oo lagu gaaray hanuunka u tilmaamadiisa markaas ka waxaan mahad celinaynaa hawsha iyo qabtay iyo talada iyo fikirka uu bixiyay culimada waxaan uga mahad celinayaa hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo majmacada iyo culimadii kale golaha guud oo ay kala soo fikirkooda soo qoray sida wanaagsan oo loo cabiray erayada oo aan laga fiirin tacasub gooni ah danta guud iyo maslaxadda iyo gudashada waajibka ummadan saareed laga fiiriyay ee badbaadinta ah ee sida aadka u dhibiyay soo waafaqan qolo oo waxay soo qortay ka kala mid ay noqdeen aad baan uga mahad celinayaa fikirkaas wanaagsan oo culimadu wada leedahay ilaahana ma taqule maxaa yeelay waafajinta ilaah iskale diintana ilaahna siyaasa ma taqule horta aman awalan dalkayna dhibaatada ka jirta abaar ayaa ka jira ilaa waxaan ugu baryaynaa abaaraha inuu nagu dulqaado shacabkana waxaan ugu baaqaynaa inay gacmaha ilaah u taagtaan oo ay tooba keenaan oo horta ilaah ay ku xirmaan ilaahay asaga wuxuu dadda dhibaato barya waa idin ajiibayaa anu ku haysanaa marka ilaah tanaad dhibaatadayna naga maqnayn daqiiqad kasta naga warqaba dhibkana haayana inuu naga fujiyo awood u leh anuu dhibku soo reeb marin naga naftusaaleeyo nabarya inaan barihi ka cagsino doqonnimo waayo waxa dhibka iyo toobakeenka waxa dhibka noo keenan intaa waayo oo meelaha gacmo kala oon cid aan awood lahayn oo waxaan alla kugu qadarin aan maartay oo ku sii karin aan horta ku hormarno marka inaan ummadeen waxa u jeedinaynaa qalbiga inaan gelino toobada in ilaahay u laabano isla markaana dhibaatada ilaahay naga qaado oo abaarta naga qaado oo colaadda naga qaado oo dalka loo dejiyo oo midnimadayna tawfiiq noo soo celiyo ilaahay baan ka baryaynaa inuu waafajiyo kulligayna halkaas horta waa culumad anuguna waa isfalaynaa dadka Soomaaliyeed dhammaantoodna waa u baaqaynaa inay taladaas qaataan sida uu yidhi Dr. Sheekh Bashiir aan la qabnaa dalka wixii khaldan waxaa lagu sixi karaa diinta islaamka ra'yi iyo ana ila tahay iyo ana iri hadday wax badan ay haleeyeen ma lagu sixi karo marka inaan u laabano fa in tanaaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah daawadiyaan haysanaa waa inaan u laabanaa wixii naga khaldan waxaan leenahay dadka la khalday ee fikir diini ah xambaarsan sida loo sheegay ee la aaminsiiyay ruux musalli ah ee masaajidka ku dukanaya kutubka ku akhrinaya inuu dilay janna ku galaayo inuu naftiisa dilay janna ku galaayo inuu ruux mas'uul dilay janna ku galaayo inuu shacabka caadi oo gumaado sida xilliga ka dhaco ogeeyay meelamida oo martay inta ka dhacay oo jasiira ka dhacay oo ka dhacay martay liida ka dhacay oo ka dhacay inta saxaabta ka dhacay oo ka dhacay shaam ka dhacay oo halkay saamaha ka dhacay oo meel oo dadkeena kamida ka bilowna ka dhacay meel oo ka dhacay oo hadda wax ka dhacay guud aan maqlaysay in lagu qanciyo qofka inuu walaalkii diyo muslim ah hada tawxiid ah wax aan ka galabsan diin looga dhigay
waxaan leenahay waxaas diin ma aha yaa lagu haldin ka soo laabda ilaa u tooba keena haddaa diin u aragtiin ay runba waalnaynana kaalaya nagala dooda waxaan idin furaynaa inaan wada doonno inaan waxaan sheegaysiin in ku qancino inay khalad yihiin oo sidii saxda ahayd oo diintayna waa diin nabadgelyo waa diin yusri waa diin ixtiraam waa diin ilaalisa nafta waa diin ilaalisa cirdiga waa diin ilaalisa caqliga waa diin wada jidka ilaalisa waa diin qofka waxa lagu faral yeelaa waxa nacfigiisa ah waxa laga reebaa nadurkiisa abis waa diin nabadgelyo waa diin oo maartay koonka kulligiis loogu talagalay inuu si nabadgelyo ah oo ku noolaado yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa wixii kasoo hor waxay naqanayaan subul shaydaan oo raaco waxaan leenahay marka kuwaas ku margiinayo kuwa maskaxda ka khaldaayo kuwa la khalda lafsadoodu kaalaya toobaa furan ilaa tooba keena kuwa qandaraaska soo qaatay oon og aaminsannahay inaynu soo naqanin oo marka horeba aan diinta shaqa ku lahayn ee diintan inay bedelaan inay diinta dadka u xumeeyaan inay diinta dadka ka dhigaan ninka diinta sheeganaya ninka diinka usaaca ku ah ninka dilaaya kuwaasi waxaan leenahay hadda waydin aragnay ummaddan oo idin sheegaynaa waydin ogaanee tuug intaan guriga la soo gelino waxaa haddii la arka kadib waa iska tagaan leenahay dowladdan waxaan mahad celinaynaa dadaalka ay ugu jirto nabadgelyada iyo la dagaalanka afkaarahaas waxaan ku dhiirigelinaynaa si sax ah oo diinta waafaqsan in lagu hago barnaamijkaas fikirka lagu khaldo fikirka khaldan fikir saxa ayaa lagu saxi karaa fikir saxa ayaa lagu saxi karaa tawciya lagu saxi karaa waxaanu rabnaa marka dalkayna in aan ka badbaadino dhammaan ummadda waxaan ujeedinaynaa in iscafiyaan inay walaaloobaan inay meel ugu soo wada jeestaan cadowgooda diimeed cadowgooda hulaad cadowgooda qarannimo cadowgooda jiritaan adigu inayna isu arakin cadow waa inayna isu arkin dad la kala qoqobaayo isku diin baan nahay kitaabka qur-aanka naga dhexeeya sunnada nabiga waxaanu nahay muslim waxaanu nahay sunniyiin حكانت حتى مثلا على انه شافعيه انا مذهبت كلا صحته امام الشافعي شيخ اسمه مالك وهذا امام ابي حنيفه امام احمد بن حنبل لما مذهبت الاسلام هذا دلعونا سي ان خصومات لو كلا صور waxay leedahay madhab gooni ah marka madhabkaas marka ma ahayn inaad madhabkaada shaaficiga wixii faslo khusuma aad doodaada ku xalisato wax wanaagsan weey maaha waxaan u bilaabayno dad hadoo dhihi jiray culimadu maba la isu keeni karo waxaan guulka culimadu wax ku midoobi karaan waxa faafi jiray acdada islaamka iyo acdada culimada hadda waa midaysan waxaan ku midaysan badbaadada kaalaya irid helbaysin taasna waxaan ka irid waxay xalan tahay kuwa raxmata shirki dadkii waday in ku badinin waxaan ku soo gabagabay lahaa aan u mahad celinayo xarunta markaska ishaa dadaalkan ka rajaynaa inay sii wada laabto culamadana doorka hadda aan midnimo lahayna weligeyn iskuma khilaafin gabdhaha nikaaxintooda iskuma khilaafin diinka akhrintiisa dadka salaada beridiisa fidnada kahortegideeda xaqa sheegidiisa wax khilaaf ah oo diineed oo dadkan u dhexeeya ma jiraan waxaanu leenahay waxa aada cadow faafinayana saas baan ku leenahay marka kaliya aan ku khatimayaa shacabkayo waxay yidhahdaan nin caam yaa culi nin culmo weeyeysan oo kor waqooyi koonfur meel aan u kasaawo asuri sokorka asxaabku culmo weeyeysan juhaala ku wareegisay culmo ku wareegisay culmo ka midaysan shacab biyo kidib aan dheheen shacab maanta kidib aan dheheen culmada anaga kala tagsan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh